waxaa aad u soo badanaya dadka iibsada kalluunka taasi oo sababtay hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala iibsada kalluunka waxaana kalluunka ka soo jalabta badda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa xilliyada ay ka kacaan dabaylaha hoos u dhac ku yimaada qiimaha kalluunka iyadoo kalluumaysatada ka soo jalabta ay sheegayaan in ay kala kulmaan gudaha badda caqabado dhinaca kalluumaysiga doomaha kalluumaysatada ayaa la kulma mararka qaar xilliyada ay ku jiraan jalaabashada kalluunka dhibaatooyin taasi oo ah maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah u dhibaateeya kalluumaysatada halkan waa kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa yaala kalluun fara badan oo ay iibsanayaan shacab Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda Soomaaliya oo mas'uulka ah arrimaha kalluumaysiga iyo badqabka horumarinta kalluumaysatada ayaa ku howlan sidii ay u horumarin lahayd kalluumaysatada Soomaaliyeed si loo helo kalluun caafimaad qaba inaan u gudbino baaqayaga ahaa in badaha ayaga laga joojiyo kalluumaysiga sharci darrada ah agaasimaha waaxda wax soo saarka horumarinta kalluumaysiga ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jiilaani Sheekh Cabdi Cismaan ayaa ka warbixiyay sababaha xilligan kalluunka u raqiisay iyo doorka wasaaradda haddii anaga ka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaad wasaarad ku tali jirtaa ama wasiirkeena sida noo sheegay heshiis badan oo la galay shirkada badan in la sameey doono qaboojiyaal kuwii hore oo ka sii fiican suuq asriga gobolka Banaadir in lagu bilaabi doono ayaa umaleynaa iyo baabuuro qaboojiyaal ah oo kala geey doonaan gobolada oo aan bad lahayn oo aan kalluunka gaarinin in si loo qaado kalluunka loo geeyo kalluumaysiin uu faa'iideystaan kalluunkooda abaarin ama la daadin agaasimaha cilmi baarista ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Nadiifo Maxamuud Yuusuf ayaa ka hadashay qorshaha wasaaradda ee dhinaca horumarinta kalluumaysatada doomanku marka midna xoog bay leedahay kuwana wax yar waay kalluun la dhaho subagle iyo kalluun la dhaho ilay oo waaweyn miiskaas legleg waxaa laga helaa meelahaas laga helaa markay halkaa aadaan waxa dhacaya in darbo ku dhacdo oo doontii iyo intii la socotaba dabayshu kaxayso oo ka tuurto wadamo kale sida hadda Sri Lanka iyo qaar ka mid ah kalluumaysatada ka ganacsada kalluunka ayaa ka warbixiyay qiimaha kalluunka la kala iibsanaya xilligan yumbiga waxa la gadaa $10 jaadarkana waxa la gadaa $5 ibar subaglaan waxa la gadaa magaciisa $4 hadda macnaha jaadarkii waxa la gadaa $3 yumbiga waxa la gadaa $4 ilaa $4 ibar subaglaan waxa la gadaa $2 marka business koosan oo soo day qaar ka mid ah dadka iibsada kalluunka oo aan kula kulannay gudaha kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ayaa ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed cunista kalluunka wax malay qaal ma jiro barwaaqo waaye shacabweena Soomaaliya waxa cusayna malay ay qaataan imaadaan soo booqdaan hadaa malay urkiisa caafimaad iskaashatooyinka kalluumaysatada ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan in ay ku horumariyaan arrimaha kalluunka iyo sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay kala kulmaan gudaha badda xilliyada ay ku jiraan jalaabashada kalluunka Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho